Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Daawadayaasha qiimaha iyo qaayaha leh ee wadani TV daawado waa barnaamijkan ugu magac daray baarlamaankan cusub bahalla noqday ama bahaweynta Soomaaliyeed. Waa barnaamijka aan ugu baaqayo inkasta oo aanwaanada laga quusan haddana waxaan rabaa inaan noqdo midi muuqdo madax ku muuqdo iyo midi saawira midna lagama quusto. Macnaheega waxa weeye baarlamaanka Soomaaliyeed ayaa maanta ku sugan in qalankoodana la eegayaa hadduu dhinaca xun ku dhacana dawlad halka ay inuu ku dhamaatay haddii xaq ay u helayaan oo dhinaca xasan uu ku dhacana waxay noqon doontaa qarankii ugu soo celiyo. Marka hore dadaalka ballaaran ee bulshada caalamka ay u gashay in baarlamaanka loo soo aruuriyo ma aysan ahayn waxay ahayd in qaran la helo si degdeg ah iyadoon awood markaa loo haynin baarlamaanka ay lagu soo qaado diyaarado ama gobolka laga soo aruuriyo ama doorasho guud oo qaran ay dhacdo. Sidaa awgeed dadaalkaasi maanta halkaan noogu keenay aysan noqonin caana lagu lisay bacaad oo kale. Waxay macnaheega u yahay inaan baarlamaanka cusub u sheego inay maanta ku xiran tahay qaran iyo qaran darro labadoodaba oo noogu magac daray barnaamijkani baarlamaanka cusub bahalla noqday ama bahaweynta Soomaaliyeed noqdo jaranjaradii kale lagaga soo gudba qabiilka oo isu bedela qaran. Ha yeelina barnaamijyada siyaasadeed ee ay wataan dadkan dhiibyacabka aan u bixiyay ee dhiigii Soomaaliya dhacaankoodii dhunqay labadan shariif ee ah kuwa dhuuqay dhacaankii dhiigii Soomaalida masaakiinta duleedka Muqdisho daasana doonaya inay lafahoodii dubtaan oo wali ku sii jiro iyo qolqolaha siyaasadeed ee qabiile ay idin gelinayaan sida hadda baarlamaanka gudoomiyaha lagu dooranayo oo ay istuseen in galayr la doorto si labadooda kalento ay labada jaga oo sare ay u helaan. Haddaba haddii kuwan ay soo noqdaan maxaa baarlamaanka faa'iido ugu jiro ayaan u sheegayaan labadan dhiigyacab ee dadka dhiigoodii dhuuqay haddana doonaya inay lafahooda shitaan maxaad ugu taageeraysaan khasaaraha aad kala geli kartaan haddii aad iyaga u danaysaanna waxay noqonayaan kuwa jagada ku faraysto oo dhiigiina labada sano ee aan idin sheegay bulshada caalamkana ma noqon doonto kuwa idin taageero qalbigii bulshada caalamka iyo Soomaaliya qalbigeedii guud ee qarannimada waa mid aad jibin doontaan. Aan dib ugu laabto baarlamaankan cusub ee hadda la soo doortay laba ayaa idin taal inaad qaran noqotaan. Qof walba wuxuu ka tagaa taariikh guud oo adduunka lagu soo xasuusto oo bool dahabi ah gala boolka dahabiga ah ee taariikhda Soomaaliyeed iskoolada carruurta loogu dhigi doono oo loogu magac dari doono aabihii ummadda Soomaaliyeed oo sida taariikhdii ay u yeelatay oo kale 13 aswayaal. Maanta waxaad tihiin hayeeyaal xaqiiqatan ah sharciga iyo qaranka u hiiliyay labadan shariif ee tuugada ahna ha noqonina kuwa u hiiliyo ama garab siiyo waxaad noqotaan kuwa qaran u hiiliyo oo waxa idin sheegayaan halka iska dhigo isku duubno oo qaran guud raadiyo oo inuu raadiyo dad aqoon-yahana oo bulshada hore dib ugu gelin dadkana aan takana ka gelin oo bulshada caalamkana ay ictiraafsan tahay oo aqoon-yahaniina oo musharaxiina oo u qalma maanta inay dalka hogaamiyaan aadna u muuqanaysaan kuwa daacad iyo qaran rabo. Haddii kale laakiin waxaad noqotay ku dhageysta kuwan labadan dhiigyacabka ee lacagihii ay ka dhaceen dadka Soomaaliyeed idinku sasabanayo oo doonaya lafaha inta haraaga ah ee shacabka inay shitaan ha ka yeelina. baarlamaanka ay qabiilka u kala soorayaan ha ka yeelina. Dantiina guud isku daya inaa baarlamaanka guud u doorataan nin aqoon sare shahaadooyin sare ka haysto dalkana aan dib ka gelin horeyna aan wax maamula ka soo qaban Soomaaliya ahna ku bulshada caalamka ay ictiraafsan tahay. madaxweynahana sidaas oo kale isagana yeela haddii idin yeelin oo aad u ololaysaan qabiilka iyo waxyaalahan qurunka ah ee ah inaad markaa raacdaan wadooyinkii labadaasi musuqmaasuq ay idinku dhunsanayaan waxaad noqon doontaan kuwa iyagana 2 sano ka shifma sida aan horey idinkugu sheegayba. Waxaan mar kale idinku wacdi gelinayaa dhammaan baarlamaanka guud ee Soomaaliyeed ee cusub dantiina guud ha noqoto bahaweynta Soomaaliyeed oo idinkana magac soo hoyiya taariikh ku gala buwaagta Soomaaliyeed inaan ugu magac dari doono aabayaashii halgamayaashii geesayaashii nabadda ummadda Soomaaliyeed noqdana jaranjarada qabiilka nagu kale 5.5 kuwa maanta albaabada u xiro oo halka ku yimid oo noqdana qaran u bedelo ayaan idinka rajeynayaa. Waxaan kaloo idinka rajeynayaa inay la goysaan jaranjarooyinka qabiilada ay isticmaalayaan labadan shariif ee musuqmaasuqa ah ee dhiigii dadka iyo dhacaankoodii dhaafsaday una rabaana inta lafaha haray inay burbursadaan sida dhulwaaga lagu yaqaan raqa oo kale. waxaan markale idinkaga codsanayaa
inaad taariikhda soomaaliyeed aada gashaan baalka dahabiga ah. waxaad maanta ku xariiqdan dad cusub oo bulshada caalamka muctarif ka ah inaad keentaan baarlamaanka, gudoomiyaha baarlamaanka iyo madaxweynaha labadaba, kuwaasi oo aad ka heli kartaan bulshada caalamka taageero aada u ballaaran oo idinku taageerto oo iyo qalbiga soomaaliyeed oo aada idin taageero. maanta caalamka iyo bulshadaba waxay eegayaan qalinka wuxuu xariiqi doono, naqda jaranjaradii 5.5 qabiilada lagu sugay halka maanta lagaga tago oo qaran noqdo. waa mahadsantihiin. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.